Assalaamu calaykum daawade. Soo dhawow application baan maanta ku tusi doonaa haddii aad isticmaasho aanuna qofna awood yeelan doonin inuu cod kaa duubo adigoo telefoon kala hadlaya ama WhatsApp ka ahaato meeshaad kala hadlaysaa ama callka caadiga ama dee meel kastoo la iskala hadlaba codka ma duubi doono qofkaas. Haddii aad ka shakidana waa daaranaysaa waanuna kuu soo sheegaya qofkaas inuu codka duubayo. Marka application-ka haddii aad xiisanayso si aad ula soo degto soo dhawow kadibna soo kayso Google-haaga ama Chrome-ka midka kugu jira labadaba. waxaad ku search gareyn doontaa marka Google aad ku search gareyn doontaa meesha soo kaysatayba qoraalkaas aad ku search gareyn doontaa. markaas aad u soo search gareysid ma taabanaysid application-ka sare balse application-kaas oo loogadiisna tahay halkaa kaga muuqanaysa baad taaban doontaa si aad si yar oo fudud uga soo degto. marka download baad ku dhufan doontaa si uu u soo dego download markaas aad ugu dhufato waa kan uu ku soo saarayaa qoraal halkaas aad kala sigaysaa download wuxuu gabigiisa waa 2 MB daqiiqada hal second buu ku dagayaa hadda waa buu dagay markaas markaas soo bax marka ma soo galayo halkan kama soo muuqanayo sidoo kale balse si halkan uga soo muujiso oo halkan u soo gal gudaha soo kayso fileskaga kadibna soo gal halkaas ku dhufo halka ku dhufo ka application ku soo dagay markuu saa kugu soo dago adiga halkan anuga update iga saarayo adiga install buu ku dhaxaya install marka tiraahid uu soo dagaya kadibna open buu ku soo dhahaya markaas kaga soo bax kadib saas uu soo muuqan doona shaashadaas kaga soo muuqan doona marka ku dhufo isaga marka application markuu shaashadiisa noocan u soo baxo waxaad ku dhufan doontaa enable baad ku dhufan doontaa oo de shaashadii markaa kugu soo baxo si aad u daarto marka uu istaaraya xagaas marka green soo bedesho xagana disable ka soo baxdo uu ku daaran yahay marka setting marka qof kasta oo ka shakado inuu cod ka duubo koola waad daari doontaa kadibna wuxuu ku soo geysan doonaa qoraal yar haddii aad qoraalka aanad fahmayn bas si aad u fahanto oo sida ugu sii dhibir waxay tahay setting-ka ku sarfan doontaa setting marka uu fato xagan ugu hoose marka timaado xaga ugu hooseysa log halka markaad ku dhufato halka marka uu fato ku saaraya shaashadan marka meelaha wax ku soo gelin doona lambarada inay wax ka duubaan damcay ama lambarada ka duubay wax kasta ku soo geysinaya marka application-kan isticmaal waxaad kaga maarmi doontaa inuu qofna inuu wax ka duubo oo qofna kama cabsanayso inuu wax ka duubo waana la socon doontaa qof kasta wax ka duubay igana joojo doontaa ilaa uu ka joojiyana xaqiiqada waad ku ogaan doontaa.